السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا marka ugu horeysa waa idin salaamay channelkayga ku xiran sida aan hore idinkugu soo sheegay inaan kusoo qaadan doono mar walba oo aan waqti helo martideeda qayb ka mid ah waa sidii ay inoo ahayd ballanta oo hore idinkugu sheegay inaan idin soo gudbin doono dhammaan oo aan idinka qabtiri doono waxyaabaha martideeda aan ku keenay oon ugu talagalay iyo habkan ka sameeyay iyo waliba waxa igu dhaliyay inaan idinkala hadli doono haddii Ilaahay raado. maanta waxaan kusoo qaadanayaa hees ka mid ah heesahayga heesta saddexaad maadaama aan dhowr heesood sameeyay heestayda saddexaad ayaan maanta kusoo qaadan doonaa idinna faahfaahin doonaa sababta aan u sameeyay iyo waliba macnaha erayadeeda iyo wixii igu dhaliyay inaan sameeyo intaba. heestaydan waxay ka turjumaysaa anigoo keli ahaa markaa oo caruurta ku keli ahaa oo dhibaatooyinkii muxuu ahaa qorbahan iyo hooyo keligeed caruur haysa iyo waxyaabaha ay la kulmi karta ay ka turjumaysay marka fikradihii igu dhashay oo ani ahaan ka turjumayay maskaxiyan iyo waliba gabar aan saaxiibo ahayn oo iyadana sidaas oo kale markaa keli ahayd oo caruur gooni ula joogtay keligeed xaajigeeda oo ay jeceshahayna iyadna uu ka maqnaa waxyaabihii oo isbiirsaday ayaa maxaa erayadan ay igu soo maaxeen oo ay ka dhasheen. heesta waxaa la yiraahdaa dhaayuhu way ilmeynayaan. muruga ma aha waa un keliya hees jacayl ah oo qofkii uu dareemay cidlo maskaxdiisa uu ka tiriyay ayay noqonaysaa. waryaan idinku daalin haddaan erayada idin bilaabo ayaa waxay tahay daraartaanan ku arag nolosha ma dhammaystiro dhaayuhu way ilmeynayaan dhaayuhu way ilmeynayaan waxaan dhadhanshaa cidlada sidii ubad iyo dhallaan dhabtayda kula jecliyaa markaad ii dhowaatid baan dhaxan kala weecanaa markaad dhahdo weer qurxoon wadnaha dhaar bay u tahay dhegtana farxad bay u tahay ruuxdana dhidib bay u tahay waxaa tahay dheelitire nafta dhisi kara oo dhaqaaqaaga uu qalbigu dhib iyo u yaqaan walaac ma jiro ruux kuu dhigmo rag baad karti dheer tahoo waxaan rajo dhowrayaa markaan kuu dhaxay adiga markaad dhahdo weer qurxoon wadnaha dhaar bay u tahay dhigta farxad bay u tahay ruuxdana dhidib bay u tahay. halkaa waxaad ka dheehan kartaan inay erayo jacayl oo dhan ku idil yihiin dee wax kaloo laydin sii qeexaba maba jirtaba qof hadduu kaa taga aad u taqaano muxuu ahaa dhimasho oo kale ay kaaga dhigan tahay ayay matalaysaa because qofna cid lama jeclo qofka markaad jeceshahay waad u boholiyoobaysaa laakiin markuu jacayl jirin hadduu kaa tago dee waabad sii ducaysan waxaad leedahay allo ha igu soo celinin marka heesayagoo dhan jacayl ay u badan yihiin laga keensadaa maxaa ahaa kariya meel dhihi jira ma aqaanayaan qofka wuxuu kaa keensado ayaa loo sameeyaa soo maaha marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynayaa heestana youtube-kaad ka eegi kartaan maanta waqti uma haya aan idinku saaro raalina noqda dee inaan wejigaygu ku weecinin keensadaa loo kariyaayay ahayd hadalkii aan qaldamayna dee qofka markuu kaa keensado unbaa wax loo sameeyaa soo maaha marka insha allahu tacaala mar aan idinku heestana way ku jirtaa youtube-ka dhaayuhu way ilmeynayaan isla channelkaygan ay ku jirtaa dib waad uga eegi kartaan. intaasaan kusoo gabagabeynayaa dhammaantiin waxaa idinkaga tegayaa inaad farxad ku noolaataan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.